ومحمد فضول قاسم كترسن ciidamada difaaca dawladda Puntland ku soo dhaawacmay calmiskeed wax allaale iyo wax naloo qabtay ma hayno isbitaalkii guud ee magaalada Boosaaso joogna wax allaale wax naloo qabtay oo caafimaad ma jirto muuqaalkan aad daawateen waa qaar ka mid ah ciidamada geesiyada ah ee Puntland dhawaan ku soo dhaawacmay buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland kuwaas oo ka cabanaya in aysan dawladdu siin wax daryeel ah intaana ku sii deyn muuqaalkan oo dhameystiran sidoo kalena dawladdu waxa ay ka tiri iyo shacabka reer Puntland iyo shacabka qurbo joogta iyo sidoo kale reer Puntland iyo dad badan oo Soomaaliyeed oo ka falceliyay intaan kula wadaagin waxaan ka codsanayaa daawad in halkan ku soo biirto muuqaalkan like ii saarto gambalelkana furto sidoo kalena muuqaalkan ay si share gareyso haddii aan ku bilaabo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxaa saaka muuqaalo isaga soo duubay qaar ka mid ah ciidamada geesiyada ah ee dhawaan ku soo dhaawacmay dagaalka kooxda argagixisada ah ee Daesh lagula jiro ee ka socda buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland kuwaas oo ka cabanaya in aysan dawladdu siin daryeelka ee mudnaayeen isla markaasna ay iyagu xitaa xabadda kiniiniga ah ay iibsadaanin sidoo kale waxa ay sheegeen in dawladdu ay ka gaabisay ballanqaadyadii ay u samaysay ciidamadaas ku soo dhaawacmay buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland waxa ay sheegeen in wax walba ay u baahdaanin ay qoysaskoodu ay ka caawiyaanin haba u yaraatee xabad kiniiniya sidoo kale waxa ay sheegeen in dawladdu awal u ballanqaaday in qofkii dhaawac fudud ahna lagu daweynayo dalka sidoo kale kuwa dhaawaca culusna lagu daryeeli doono dalka dibadiisa sidii dhacdayba maalmihii uu dagaalku bilowgiisa ahaa balse labadii bilood u dambeeyay waxa ay sheegeen ciidamada geesiyada ah ee ku soo dhaawacmay buraha calmiskaad in daryeelkii ay u baahnayeen laga joojiyay lacagtii iyo sidoo kale hantidii ay shacabka reer Puntland ugu deeqeen ciidamada geesiyada ahna laga musuqmaasuqay oo guddigii madaxweynaha dawladda Puntland uu magacaabay guddiga caafimaadka iyo guddigii daryeelka ciidamaduba ay ka musuqmaasuqeen madaxweynaha dawladda Puntland oo saaka maanta war soo saaray ayaa waxaa la sheegay inuu dhammaanba guddigii daryeelka ciidamada oo muddo 2 bilood ku sugnaa magaalada Garowe uu ka soo eriyay eedama culusna u jeediyay kuna amray in ay dhaqso u dardargeliyaan shaqooyinkii ay u hayeen ciidamada geesiyada ah ee ku soo dhaawacmay buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in ciidamadaasi loo soo wareejin doono magaalada Garowe ee caasimadda Puntland halkaas uu hadda madaxweynuhu uu fadhi ka dhigtay kana soo wareegay magaalada Boosaaso waxa uu sheegay in hadda ka bacdi ciidamadaas loo soo wareejin doono magaalada Garowe halkaasna ay ku heli doonaan daryeelkii ay mudnaayeen dhanka kale shacabka reer Puntland ayaa iyaguna aad ugu xumaaday in ciidamadii geesiyada ahaa ee ku soo dhaawacmay dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee Daesh ay saaka ka soo muuqdaan Facebookyada iyagoo ka cabanaya inaysan helin daryeelkii ay mudnaayeen iyadoo la og yahay in shacabka Puntland ay dal iyo dibadba u kaceen ciidamadaasi siday u heli lahaayeen daryeel buuxa dawladda Puntland ayaa xooga saartay muddooyinkii uu dagaalku cusbaa in ay aad u daryeesho ciidamadeeda geesiyada ah balse muddooyinkii u dambeeyay waxa muuqatay in dawladdu ay dhanka siyaasadda u jeensatay oo howlgalkii ka soo jeensatay inkastoo madaxweyne Deni uu dhawaan ku baaqay in howlgalkaasi uu wajigiisa u dambeeyay galay farxadkii kooxda Daeshna halkaas lagu soo ciribtiri doono hadda ka bacdina loo laaban doono ama la bilaabi doono aan dhehe howlgal uu ku magacaabay madaxweyne Deni onkod oo ka dhici doona gobolka Sanaag kaas oo lagula diriri doono sidoo kale kooxda argagixisada ah ee shabaab oo ku dhumaalaysta buuraha calmadow ee gobolka Sanaag wixii warar oo daawadayaal ka soo kordha arrimahaas halkan ayaa kula socodsiin doona balse wax ka codsanaya adigana inaad igu taageerto inaad muuqaalka like saarto gambalelka furato muuqaalkana sii share gareyso waa mahadsantahay